بسم الله الرحمن الرحيم anigoo fartuun Suleymaan Xirsiye aaba waweliye xirsi garaaro oo ka baafinaya bandiiraley aabahay hooyaday abtigay hooyaday waxa la yiraahdaa Maryan Cali Ciise Caldho abtigayna waxa la yiraahdaa Cabdirasaaq Cali Ciise Caldho muddo waxaan la ay hooyo 35 sano abtigayna muddo 20 sano aabana maba aragba waligay aabahay ma jeerteen buu ahaa عمر محمود ريح يسيبه أها ويورينا معاله ريح أحمد بكتة رينا معاله يعني أبتنا ورينا على سجون هو يقول يا سوى ريح أحمد عنك عصنا هي يعني تتكع صدق قفة ماشي جالسين كران ماشي اللي جوب كرعد كذا هذا الكذا مغال كذا وحصار شاقة إن اللي يرهش أنا جوا فرتون سليمان حرسي اللي هذا هو يحرس جارنا قاعدين هاي hooyaday baan baafinaya hooyaday Maryan Cali Ciise Caldho baa la yiraahdaa xamar bay joogi jirtay waa ka tagtay Sacuudiga iyadoo ku nool baa xamar dagaal ka dhacay xamar bay Sacuudiga ka tagtay Sweden bay u dhooftay Swedenkii markay tagtana waa la waayay wali waa lagu soo hayaa wax sheega iyo wax markii dhimashadeeda iyo ama nolosheeda noo soo sheega ma arag muddo 35 sano ay maqanta hooyaday marka halkaas lagu waayay aabahay baa soo haray aabahay anuu ibidkay ma arag hooyaday iyadoo uur leh bay isfureen kabacdi abtigay bay is aqoon jireen abti baa sheegi jiray kabacdi waxaan tagay gaalkacyo jeertaanka aabahay ma jeertaan buu ahaa Umar Maxamuud Reex Xirsi buu ahaa odayaal ma jeertaan la ii geeyay waxay raaway xirsi garaara la yiraahdaa waxay yiraahdeen aradan mid dago dadna kama joogo kismaayo iyo wixii ka shisheeyaan laga helaa bay dhaheen saas odayaashii u tagay yiraahdeen odayaal weyn bay ahaayeen aabana waa ii sheegeen halkaas iyo ama Norway ilaa kismaayo ilaa ka shisheey in dadkiisa laga helo abtiba marka soo wali ana goobay abti la waayay abtina muddo 20 sano maqan yahay sidii marka abti weynay oo wax kale aan la hadalna weynay waxa weydiino sidii baan isaga daynay aadaan baafin haya ana hooyo caruur lahaanahay meel baan deganahay caruur badan bay joogta inta sooyaday ay sii maqan tahay wax ii sheegay walaal iyo waalidkaygii hooyo muddo 42 sano aan jiraa hadda dhowr jeer baan baafiyay xamar baa marka baafiyay marna anu ma aqaan dad kale waa baafiyay anu kuma jirin balse anu xamar baa ka baafiyay baafinta hadda galabta ii xigtay wax ii sheega iyo wax yiraahdo maalin baa la arkay ama nolol ama geeri ama midna ma hayo iyo wax soo sheegay wax soo hadlaya xabadna aan dareemayaa hooyo iyo aabayna midna haysan waligayba ma haysanay aween baad daqoodaan oo xil ka soo أولنا واسكرهم وهدرنا ما دام أنا أول نقطة حاسير هذا عقلي إيسي هذا وارث إسكت جوبته بلاي الهكسي أنت أصلا قربت أصلا فرست تيبا أي شيء أنا أول بان أقول نور ويد بتشوجا بيجي مركي يقول دميس مركا نور ويد بتشوجا أبتبا يجري سواء أبتربا إنه إلى السحرية ويجري كبر يجي من رباه با أبتجي حاجة سادي أبتجي باب الواي نور حي meel marka qof asagiina itusaya ii goobay anigina iskaaya baraloodeeni ma jirin abtiba naga dhaxbacay Swedenkay joogto hooyo Swedenkay aaday Sacuudiga ka tagtay Sweden bay u dhooftay warkeeda isla markii la waayay taas waa la goobay abda qola loo diray abda qola ka iimaanayso la ma aragteen ma narbeedi dhimatay inay noo shahay ay hada na weyday yeena dhimatay oo ay xababa hadda laba qolo dhaaftay waa garan weyn waxaan ku codsanayaa inay dadka saddex qof ah meesha gaarsiin karaan iyo meesha laga goobi karo codkooda iyo hadalkooda iyo muuqaalkooda iyo wax soo sheega in la yiraahdo markay farashan weey 20 eber 2 59